tahay qof jecel inuu barto qaabka loo sameeyo website blog oo WordPress ah kadib barto sida loo qoro posts ama articles sidaas la mid ah post thumbnail loogu sameeyo articleskaga ugu dambeyn sida Google AdSense loo codsado looguna xiro website-kaaga haddii ay jawaabtaadu haa tahay aan isla eegno website-ka aan dhisi doono iyo qaabka uu u eegyahay kani waa website-ka aan sameyn doono inta ay koorsadani socoto oo waxaan baran doonaa guud ahaan qaabka loo sameeyo website-kan oo kale anaguna markaas hal step aan ka boodi doonin hadaba maxaa shaaca ka qaadi doonaa intay koorsadani socoto koorsadan waxaan u kala dhignay 21 steps oo step walba markaas wax gaar ah aan ku baran doono hadaba maxaan baran doonaa stepka koowaad waxaa arki doonaa sida loo helo domain hosting stepka labaad waxaa arki doonaa sida loola soo dego WordPress stepka saddexaad waxaa arki doonaa sida loo set up gareeyo qaybta back-endiga website-kaaga stepka afraad waxaa arki doonaa sida loola soo dego waxa loo yaqaan theme iyo plugins stepka shanaad waxaa arki doonaa qaabka loo abuuro pages stepka lixaad waxaa arki doonaa qaabka loo abuuro menus stepka toddobaad waxaa arki doonaa sida loo sameeyo logo stepka sideedaad waxaa arki doonaa sida loo dhiso qaybta headerka stepka sagaalaad waxaa arki doonaa sida loo dhiso qaybta footerka stepka tobnaad waxaa arki doonaa markaasi qaabka loo qoro posts ama articles stepka 11aad waxaa arki doonaa qaabka loo sameeyo post thumbnail stepka 12aad waxaa arki doonaa sida loo dhiso page-ka home-ka stepka 13aad waxaa arki doonaa qaabka loo customize gareeyo post page-ka iyo blog page-ka stepka 14aad waxaa arki doonaa qaabka loo dhiso markaas about page-ka stepka 15aad waxaa arki doonaa qaabka loo dhiso contact page-ka stepka 16aad waxaa arki doonaa qaabka loo optimize gareeyo website-kaaga qaybta SEO-ga stepka 17aad waxaa arki doonaa sida privacy policy ama page loo abuuro stepka 18aad waxaa arki doonaa sida terms iyo conditions page loo abuuro stepka 19aad waxaa arki doonaa sida disclaimer page loo abuuro stepka 20aad waxaa arki doonaa sida xawaaraha website-ka kor loogu qaado stepka 21aad oo ah stepka ugu dambeeya ee koorsadeena waxaa ku arki doonaa sida Google AdSense loo codsado looguna xirto website-kaaga sidaas la mid ah website-ka aan dhisi doono waxaan ka dhigi doonaa mid dadka haysta mobile iyo markaasi laptop uu si fiican ugu shaqeeyo una arki doonaan hadaba waxaan idin rajeynayaa inaad noqotaan kuwii ka faa'iideysta koorsadan aadka u muhiimka insha Allah